maxaa keena xanuunka cirbaha ku dhaca ama cagaha guud ahaan ku dhaca oo u badan dhinaca cirbaha? meeqa nooc ay u kala baxaan? sidee lagu kala gartaa noocyadaas kala duwan? weliga ma maqashay plantar fasciitis? kusoo dhawaada videogan gaaban ayaan uga jawaabi doonaa dhammaan su-aalahaas aan kor kusoo xusay. cirba xanuunku dhowr nooc ayuu u kala baxaa, dhowr waxyaalood oo kala duwan ayaana keena. waa maaragtay xanuunka ugu commonsan amase ugu caansan oo ugu badan oo cirbaha ku dhacana waxaa loo yaqaanaa plantar fasciitis. waa maxay plantar fasciitis? caadiyan human anatomy-ga markii la fiiriyo ama sida jirka biniaadanku uu dhisan yahay, waxaa jirta band ama thick band oo ciribta qofka kasoo bilowda. waa macnaha waa ligamentiyaal ama seedad xuubah oo cadcad oo isu tegay oo xayna. sida jirka meelaha kale uu muruq u leeyahay waa muruqii cagta, laakiin muruq caadiya maahan, waa fibres oo waxawaaye plantar fascia ayaa la yiraahdaa. ciribtu meesha ay maaragta cagta oo lafta ka tahay kasoo bilowdaa, dhexda cagta dhexdeedu maraa, faraha iyo ilaa horu usoo aada, sidaasuu ugu fidsan yahay. waa baan. haddii la qalo xubkan cad oo cagta cad oon caadiga aho naqaana laga tago, baankaas cadaa loo tagayo fibreska. shaqada ay qabtaan marka waa maxay? shaqada ay qabtaan waxaa la yihahdaa ugu badan arch support. sida caadiyan macnaha haddaad aragto cagtaada aad fiirido, suulka weyn meel adag uu leeyahay dhulka dhigta, ciribtuna meel adagay leedahay oo dhulka la dhigay. inta u dhaxayda waxaa ku jirta meel bannaan. meeshaas bannaan waxaa ka koreeya fara yaryar oo tarsal bones la yiraahdo. marka hadday tarsal boneskaas caadi dhulka u taabtaan, maanan awoodnen inaan orodno, maanan awoodnen inaan soconno, sababtoo weydkii ama culayskii qofka ah wuxuu ku dhacayaa lafaha yaryarkaa. wax dhaxaa kama waaweyna kuwan gacanta, qaarkood way ka yaryar yihiin laakiin way ka badan yihiin. marka lafahaas markii culaysku ku dhaco oo aan ku istaagno, dhulkay caadi u tegayaan. si aysan dhulka marka aysan ugu tegin, human anatomy ahaan ilaahay wuxuu u sameeyey fibreskaas oo baanka oo kasoo taga ciribta hoosteeda, saasay ugu fidsan yihiin. marka saasay ugu fidsan yihiin, arch support la yiraahdaa. marka ayagiyaa celinayo culayskii iyo waxawaaye iisheeg weydkii markuu soo dhaco, waxawaaye way absorb garaynayaan culayskii o dhan, ayagaasoo absorb garaynaya. marka taas waa midaas oo arch support ay sameeyaan. marka meeshaas cagtu ay ka gudanta oo ka banaanta, waxa ku aadan oo dhan ayaga waa culaysku inta badan uu ku dhacayo lafaha ka celiya. maxaa dhacda marka waqti badan markuu qofku dadka oo maaragtay ama culayskooda uu aadka u badan yahay, ama dadka orda, ama dadka shaqadooda ay taagnida tahay oo wax badan socda reparative trauma wax leeraha ku dhacayda. maalin walba markuu ku socdo garaaco, istaagiisu badan yahay 12 saacadood uu taagnaada, irritationa ka bilaabanaya. meesha ugu dambeydo ay kasoo bilaabanayaan danqasho iyo dhaawac yaro gudaha hagalaya. irritationkaas uu soo soconaya, ciribtu ka bilowda, kor usoo fida ilaa cagta dhexdeedu maraa. waxaa marka loo yaqaanaa plantar fasciitis. waa fasciadii oo inflammation ay gashay. plantar fasciitis aa lagu yirahdaa medical terminology. marka waa baankaas cad oo lugta ka hooseeya, hadduu irritation uu galo, iisheeg waxaa loo yaqaanaa plantar fasciitis aa loo yaqaanaa. waa inflammation oo meeshaas ku jirta. marka waxyaalaha oo symptomska ama calaamadaha lagu garto waa ka hadli doonaa xanuunada kale u eg. calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah sharp pain, in wax ay lagu mudmudayo ayaad moodaa. 1. 2. markaad habeenkii seexato, subaxdii soo kacdo, cagta dhulka ma dhigi kartid. sharp in qodxa ku mudayo inaad moodaa. adoo xala fiicanaad seexata, cagta dhulka ma dhigi kartid. markaad dhowr tilaabo qaado, guriga xoogaa ku dhex warwareegto, way fiicnaanaysaa oo stretch yar iyo socod yaraad samaydo, way soo hagaagaysaa. laakiin cagta dhulka subaxii qofku hadduu dhigi waayo isagoo xala fiicanna uu seexday, waa calaamadaha kamid ah plantar fasciitis. first few stepsna way roonaanaysaa. prolonged standing, markaad wax badan taagnaata ama maanta wax badan socoto, cagaha ku horayo ku gubanaya, si oon caadi ahayn ay ku gubanayaan oo sidii hore oo maaragta caadiga ahayd, daalkii caadiga la yaqaanay aan ahayn. kaafiska ama lugaha muruqyadan dambe oo kubka la yiraahdaa stiff ay noqonayaan, tight ay noqdaan dadka oo maaragta plantar fasciitiska ay oo qabaan. haddii la riixriixo cagta, meelo waxaa laga helaa suulkaas intii uu gaaro oo saas markii loo taabto qofku uu danqanayo uu boodaa. waa meesha ay kasoo bilaabatay oo originka oo plantar fascia originate, meeshaas ay kasoo bilaabatay. dad saas suulka u saarto way danqanaysaa. waxaasoo dhan waa calaamadaha lagu garto. risk factorska amase waxyaalaha keena. number 1 aan ku bilowno prolonged standing, inuu qofku wax badan taagnaado oo taagnadiisu ay badan tahay, shaqadiisu ama ay taagnita ama ay socod tahay 12 saac iyo wixii ka badan. weight gain ama obesity, inuu qofku aad u culus yahayna way keentaa. oo plantar fasciitis risk factorskeeda waxaa obesity iyo overweight waa ka mid yahay. midda ugu qatarsan waa flat foot,
macnaha inay lugtu dadka qaar lugtooda gacantaadaad geli kartaa markay istaagaan meel cado waxay leeyihin aan weligood dhulka taaban oo dhul ma gaarto wax saasaa la yihahda qaarna way gaabantao meeshaas way yarto almost lugtooda dhulkay taabayda waa dadka flat feet la yihahdo waa dadka lugahoodu ay sidaa u fidsan yihiin marka taas waa low archkiyo low noqday oo meeshii sidaas la rabay inay ahaataa low noqotay taasuna way keentaa way soo dedejitaa because wax badan ay dhulkay gaaraysaa poor footwear maxaa loo yaqaanaa dadka sida gabdhaha kabaha ciribta dheer la qaato kale way keentaa oo maaragtay aan kabahoodu aysan falaadka aysan ahayn iyo qof kastoo kaba cirib dheer la qaata iyaduna waa keentaa oo poor footwear la yihahdaa orodka iyo dadka bootinta iyo waxyaalahaas sameeya way keenaan sudden increase of activity waxaa la yihahdaa amase qof maaragtay cayaara ama jimicsada ama orda maadan ahaa jirin all of a sudden maantaad go-aansato inaad oroda ka qayb qaadato horena maaragtay umaada soo aalamiitayn oo dad hore u ordi jira maahid marka degdegaas uu jirkaaga isu bedelo orodkaas oo lugta aysan aqoon ood maaragta ku bilowdaa way keentaa diagnosiska marka ay timaado amase sida lagu ogaado meeshan waa very important maaragta dhakhtarka aad maaragta u tegayda waa inuu wax weyn ka fahansan yahay waa very important diagnosis symptomskas aan sheegay kow midda ugu horeyda waa symptomskas qofka historyga in laga dhageysto yacni wuxuu qaban jiray shaqadiisu waxay ahayd ma degdeg orod iyo jimicsi uu bilaabay cusubaa jira ma kaba nuuca kabaha u xirtaa nuuca ay yihiin xanuunkan xilliga uu soo bilowday waxaasoo dhan waa history macnaha subaxii markaan soo kacaba cagahan dhulka dhigi waayo hadduu ku yirahdo waa calaamadaha number 1ka lagu garto waxa waaye markaan cabaar socdaan waa ii roonaataa midda labaad oo taas waa symptomka maaragta qofka kuu sheegaya midda kale objectiveka waxaa waaye inuu maaragta dhakhtarku ta riixo uu arko meesha ilaa waa taqaanaa faashiyadaas macnaha human anatomiga meesha ay marto uu garanaya dhakhtarku marka meesha ay ka bilaabataa oo ciribtaha laga soo bilaabay riixitaanka ilaa meesha ay ku socoto dhexda meelaha aad ugu ogto maaragta ay ugu badanta haddaa ka riixdo markaad taabato uu qofku booda intii suulkaas la-eg markaad taabato calaamadaha lagu gartay ka mid tahay iyaduna waa physical examination la yihahdaa diagnostic markay noqoto ii sheeg waxaa maaragtay lagu bilaabaa ultrasonka wuxuu faashiyadiyo inflame ah meelaha inflammationka uga jira wuu soo saaraa laakiin hadduu isagu soo saari waayo midda ugu dambeyda waa MRI x-raygu waa la saaraa si loo ogaado tarsal bonuska iyo wax ka jiraan iyo dislocation iyo waxyaala yaryar u jiraan lagu ogaadaa laakiin iyadu ma sheegto inuu inflammation ku jiro oo baankaas in wax ka jiraan ma ay sheegto tan waa important iyaduna differential diagnosis wax la yiraahdaa jirta sida caadiyana marka aan dadka exam garaynayno xanuun haddaan maaragtay aan ogaano niraano xanuunkaas uu qabaa xanuuno badan oo waxaa jira xanuunkaas u eg marka waxaa loo yaqaanaa differential diagnosis maaragtay dhakhaatiirtu way yaqaanaan differential diagnosis loo yaqaana haddii uusan A ahayn B iyo C wey marka plantar fasciitis inta badan labada xanuun oo maaragtay oo aad maskaxda inaad ku qabato ay tahay markaad exam garaheeda waxaa ka mid ah heel spurs macnaha heel spurku waa abnormal bone growth oo ciribtii laf yaro oo maaragtay waxaa kasoo baxayda oo normal ahayn oo sidii lafta ciribta aysan u sinnayn lafa yaryara kasoo baxaya maaragtay waa abnormal growth oo bone ah marka meeshaas la riixo sida plantar fasciitis oo iyaduna u booda laakiin tii hore fasciyada iyo baankaas oo muscleska yaryarka camal u samaysan unbaa danqanaya tan waa lafta tii hore xididay ahayd wax xanuunka ka jira tan waa lafta marka heel spurs la yiraahdaa raajada waa lagu arkaa iyada midka labaad oo isaguna saddexaad oo isaguna importantiga oo plantar fasciitis ka shabaha waxaa la yiraahdaa mortis neuroma weliba waa very maaragtay aad ayay ugu dhowdahay plantar fasciitis sababtoo ah lafihii yaryaraa dhexdooda oo tarsal bonuska cagta lafaha qayb inta badan korkaa laga dareemaa faraha iyo dhexdooda suulka iyo farta ku xigta dhexdeeda iyo faraha kale ayaa laga dareema oo dhulka markaa dhigtay ay ku danqanayaan waa nerve problem neerfaha yaryaroo plantar nerveska la yiraahdo cagta ku jirjira irritation ku dhacaya ama danqanaya marmarka qaar plantar fasciitiskii lafteeda waxay keentaa inuu cagtu korka ka danqato marmarka qaarna mortis neuromadan oo faraha dhexdooda ku jirto neerfayaashaas irritationka ku dhaca waxay shabahaan oo u ekaadaan plantar fasciitis marka dhakhtarka laga rabaa inuu kala saaro oo maaragta hadday noqoto diagnosticgii iyo hadday noqoto historygii iyo hadday noqoto physical examinationkii iyo inuu challenge gareeyo inuu kala ogaado marka hadday faraha dhexdoodan iyo korkan ay u badan tahay most likely waa mortis neuroma waaye
MRI-na lagu arkaa oo in maaragtay neerfayaashaas iritood garoobay iyo waxyaalahaas lagu arkaa. in la kala saara waa muhiim sababtoo treatment plankoodu waa kala duwan yahay. midna anti inflammatory iyo kaalmaatiye iyo la siiya, midna waa neuropathic medication la siiya, waa nerve issue. marka waa muhiim inuu dhakhtarku kala saaraa labadaas. marka ay noqoto plantar fasciitis treatmentigeedu inta badan wuxuu ka bilowdaa conservative care. conservative care waxaa la yidhaha inuu qofku nasto, inuu baraf iyo iska saaro oo maaragta inflammationkii dejiyo, kaalmaatiyo sida kiniiniyada anti inflammatoryga iyo waxyaalahaas inuu qaato. conservative care la yidhahdaa. marka ay noqoto oo physiotherapy iyo rehab, marka ay noqoto hadda Canada iyo Mareykanka waxaa ugu muhiimsan maaragta ugu caansan oo lagu sameeya wax la yidhahdo shock wave lagu sameeyaa. meel walba ma taala, xarun walba ma ay taalo, laakiin inta badan physiotherapyada iyo pain clinicyada iyo meelahaas way taala, waa laga helaa. shock wave-taas video kale uga soo hadli doona iyo sida ay u shaqeydo. qof train oo loo tababara waa inuu sameeya, sababta waa mishin adagoo cagta lagu garaacayo weye. marka qof aan aqoon hadduu qabta lafaha yaryarka wax kaa gaarsii karaa. sidoo kale dhiigga blood thinning ay ku sameydo, dhiiggay dabcida oo aada u qafiifida. marka in meeqa xabaa lagu sameynayaa, inta xaboo lagu sameynaya, sida loo sameynayo, intensitygeeda iyo meesha la geeyaa xoogeeda, cagtaada iyo qofka weightkiisa iyo ku xiranta. marka qof aan train u ahayn oo u training garaysnayn qatar uu ku geli karaa. qof walba ma uu sameeyo shock wave-ta. waa mishin qaaliyo dhowr iyo 10,000 ilaa 20,000 jooga, laakiin xarumo badan u yaal loo samaystaa jiraan, maadaama researchadii maaragtay aada u taageereen oo la yiri plantar fasciitis waxyaalaha lagu daaweeyo ay ka mid tahay fasciada baankii adkaaday baa lagu jalciyaa. marka physiotherapy iyo shock wave-kaas oo iyaguna conservative care-ka ka mid yihiin. waxaasoo dhan markay shaqey waayaan cortisone injection cirbad leeraha pain clinicyada ama ay dhakhaatiirtu ay ku dhiftaan oo laga yaabo inay 6 bilood ama sanad uu xanuunku qofka kusoo laaban, kadibna uu modified ku sameeyo kabihiisii iyo wixiisii bedelo, uu sii diyaar garoobo exercise jimicsiga yaryar iyo stretch ku sameeyo oo ay saa kusii fiicnaato. rare case kuwa aan badnayn qalin lagu sameeyo, laakiin intooda badan conservative care-kaas kaalmaatiyada iyo waxyaalahaas iyo nasiinada iyo kabihiisii inuu qofku wax ka bedelo oo orthopedic insole waxa la yiraahdo qofka cagtiisa inta la cabirin kabta wax la dhexgeliyaa jirto cushion oo aad u jilicsan oo loo geliyo kabaha. waxyaalaha yaryarka lagula tacaalaa. hadday soco waayaan cirbadaas iyo pain injectionkaas unbuu qofku aadaa. hadday soco waayaan qalinku waa marka ugu dambeeyo. marka waa sidaas plantar fasciitis. kuwa kale oo heel spurs iyo waxa kale oo iyaduna jirto xoogaa maaragta u eg shabahda laakiin aada uga durugsan. waxa la yiraahdo Achilles tendonitis. Achilles tendonitis waa fascia, muruqa dheer oo fascia meesha uu ciribta uga xirmo. dadka qaar meeshaas xanuunto oo ciribtii xoogaa kasoo baxsan fascia ay ka suran tahay. fasciaas xarigaa dheer oo Achilleska ama fascia aan naqaana meesha uu lafta ciribta ka suran yahay irritation ku dhaca. iyadana Achilles tendonitis la yiraahdo. waxyaalaha oo maaragtay lagu qaldi kara ay ka mid tahay, laakiin markaa dhakhtar u tagto wuu kala ogaanayaa inay Achilles tendonitis tahay, inay heel spurs tahay, inay Morton's neuroma tahay, inay ii sheeg haddii ilaahay kuuran plantar fasciitis tahay. iyagoo dhan caga gubasho iyo caga huray leeyihiin, laakiin plantar fasciitiskaasi ugu weyn oo ugu caansan. marka kuwa kale fiidiyooyo kalan kasoo samey doonaa shock wave sida ay u shaqeyda iyo waxa ay tahay iyo hadaad maaragtay rabtiin iyadan inaan video aan kasoo sameeyo commentiga YouTube channelka igula soo wadaaga. inta badan commentiyada waan aadan u akhriyaa. marka haddii oo ku dhawaad ama 40 qof ay isku raacdo topicaas in video laga soo sameeyo waan kasoo sameynayaa. aad iyo aad ugu mahadsantihiin channelka saa u support gareydeen iyo engagement-giina iyo sida video like gareydeen oo isu gaarsiideen. intaan video dambe ku kulmi doono. Assalaamu calaykum.